gudoomiyaha degmada Lughaya iyo waftigii ka koobnaa golihiisa xildhibaanada deegaanka ayaa waxa sida oo kale lagu soo dhaweeyay deegaanada Sheeder Waraqa Dhigta iyo Tuurka waxa halkaas si diiran ugu soo dhaweeyay bulshooyinka kala duwan ee ku dhaqan deegaanadaasi haddaba mas'uuliyiintan oo u mahadnaqay bulshada ujeedka socdaalkoodana ka warbixiyay ayaa waxay yiraahdeen bismillahirrahmanirrahiim marka labaad waxa weey waqtiga wala socotaa ee gudoomiyaha degmada xildhibaanada dhammaan soo dhaboqotay marka waati koobaad marka taas ama marka labaad taas ama marka dad bulshada soo dhaweysay Sheeder kulli aad baan ugu maasan yahay aqoonta sida loo soo qoray hawshan baayaha bulshada ka jiray balse doofaanta u dhacday beeraha say wax yeeshay doofaanta cid wax u qabatay oo ka xidhay meel taaga hadii la arko meter arki maayo gudoomiyaha degmada aad buu maasan yahay hawshan la qabtay gudoomiyaha degmada waxa weey oo mar waraaq noo qoray ilaa waxa tagnay wasaaradda beeraha tagnay duqeydii tagtay sida naga qabsatay iyo wixii nagu soo jawaabay joogaan iyaga kulli ka jawaabi doona waxa weey taasina waxa weey oo waxa weey waxa ka dhac hadlayni iyadoo beeraha badhan nool iyo badhan dhisay saakana waxa joogtiyada inuu dhigina lagu tusdoonay boqolkiiba 7 baa faraha ka baxsan beeraha Sheeder saak ma aragta bacda salaan bulshada reer Sheeder guud ahaan waxaan idinka mahad celinaynaa sidii horeba la idinkaga soo mahad celiyay codkii aad dhiibateen aasaasan xildhibaanada golaha deegaanka 2 3 4 midkay doonaan baa ahaadaan aad baa go'aan anagu dhammaan idinka mahad celinaynaa marka labaad waxa maanta xildhibaanada u wada socdaan doortaan raggii horaan ka soo joogaa muddaan soo joognay runtii wax badan baan ka soo baranay intii hore ciladuhu meelaha ay ka jiraan oo dhan bulshadeena ay ka haystaan maanta waa arag baan u ahay golaha cusubna waxaan ku hogaaminayaa waa aragtinimadii aan ka faa'iiday intii hore waxaan ka bilownaa midnimada horta golaha inuu kow ka noqdo haddii anagu midkayba meel socdo ee bulshadu حتى هذا أنا نقول أنا آخر خلاف سرير واحد وقاعدنا يعني رجع وده سعن رك كلام تكسن أنا أساسا نقول أنا إنسان نقول دعيني إنسان أنا أسكتوا من أنا في عم واحد يبقى بنينا نوع قليسي أنت نوع قليسي المجال Sheeder ما هذنا بلارن بنو جيدين ما توقع نقص الناس حلبنا دي تجمد الوحية سلام هذا غير نوع قضيسين ما أنت وحنا هاي حلبنا دي دقمة اللوحية سلام كا حلبنا دقمة اللوحية قف كميت أي وحقو واجب لي أي إن أمال لقى صوت دورتي من لقى صوت دوربا وحكا قبض حلبا كصار لي واجب وحنا ربعنا هنا الله شقيسان رضا سلف في عن نوصل جيتين نوصل دويسين يا باني كم هذا علينا ومرة كوبات أصلا مرة الله بعض كل إن بدن بالصوها ضيوه لجوه لي هذا كان والد دميي وحوي أنا ميد ما قدري قدري يا وحي تاي وريش الدور وين وهي هردمه هذا واحد يدين توقله الدورتين عصبة أو دنيرة أو أقول له أو فكرتي ولا فكرتي دتكوه وحوي إن نجرب استخدام أربعنا wadnaadii dadweynaha reer Sheeder waxaad ku naasatay sida wanaagsan ee aad ugu soo baxdeen rag iyo dumar علماء الدين هي أوقات هي قرأت لك ربع وتكون هتسلسل بين لنا مرك اللبات سيد الله يني صور شركة اللي بنادوا ويسود من هذا الكا بيجي كاره يوم قدر إياه توبوا ونكسره قدر يوحويان وديرجلين وعشورته الله بحيو وأي عشورته وشيء قرهات دولة نمد اللي هي وشيء قرهات وطن نمد اللي هي قفكم موادن كي هدونا بحين عشورته وحي حقه ولها وحكا نافسا أو كاي تارون لما ويدينيو قواب والبيتال كيغا إنا يبحيسايا اللو باهن يهي إن عشورته اللو ديار قلوبه أو
maamulka magaalada sida hayrtuulaha guddida la shaqaynaysa inay la shaqeeyaan ninka cashuur qaada aha ee meesha jooga iyo shaqaalaha kale ee cashuurta ee imanaya hadday sanad la tahay iyo hadday maalin la tahayba in lala shaqeeyo yaan inaga doonayna waxaa iyaguna geestooda ka hadlay xubno ka mid ah bulshada deegaanka kuwaasi oo soo dhoweeyey waftiga xildhibaanada ah ee soo booqday deegaanadii laga soo doortay waxaana hadalladoodii ka mid ahaa maanta inii kooban malay xildhibaano wada socdo oo inii yimaado horta waa run xildhibaano socdo oo dalkii lanaga soo doortaan maraynaa yidhaaho waa noo kow labaad nin ogaadeeraa timir loo dhiibo wuxuu yidhaa layidhi tii horaa badda ulaa adeerka iga daaye tanna sidaan in la karanayo u haysta inama yarar baa tihiin oo mutacalimaad baa tihiin saaka dee da iyo garaan iskumakii soo darin waxaan malaynayaa in mutacalimnimo iyo garaad aad u socotaan ku haween waxaa noogu daran waxbarasho iyo maxay ahaydaan waxaa noogu daran dhakhtar malidin tuboos malidin maxay ahaanay malihin afrish malidin milix hadday maanta cabiraadan u baahano waxaan tagnaa garbada dargaari bana geergarisanaa hadday kasii weynaato waxaan tagnaa bowrami dowladda somaliland anagu waxaan aragnaa maalinta la yidhaahdo waa doorasho la yidhaahdo hawlaha iyaga iyo waddadayadu waa daayac waxaan u dooranaynaa hadday xildhibaano tahay hadday madaxweyne ku-xigeen tahay hadday madaxweyne tahay dadkiinii waayaan iyo dalkiinii wax laynii qabto ayaan maalintaay oo laylu hedlinaano oonu yaacaynaa kii maalintaa la yidhahdo markaa sidaa laajigeed waxaan dawladda somaliland ka codsanaynaa maalinta ay dhibi jirtana inna noo yaacan u jecellahay waxaan salaamayaa madaxdayada cusub ee maanta timiday ee dhaladka ee maanta hortay cid kasta oon u footayn jireen arag boqolkiiba boqol baan salaamaya waxaan kaloo salaamayaa shacabka reer Sheedeer sida fiican u soo dhaweeyaan salaamaya in yar baan ka hadlay hal ku dhamaadeen ragga ka hadlay gudoomiyaha ka hadlay gabdhaha ka hadlay in yar baan ka hadlaynaa kow horta beeraha wixii daad qaaday iyo wixii dayacan iyo wixii daasida imika tagaysiin sheeka ma loo sheekay ma yoonay hadda tagaysiin inniga ay dhigina ku arki doona talabaad iyaalka waxbarashada waa la inii sheegay intay macalinada gunala iyo intaan gunna lahayn macalina gunna lahayn lamaba xakuri karo mana shaqayn karo niyadna ma helayo mustafa xuseen cabdi mustafa garbo wararka telefishinka horyaal magaalada Sheedeer